wardagdaga waxaa magaalada Muqdisho ka furmay maalinkii labaad shirka u dhaxeeya madaxda mucaaradka iyo madaxweyne Xashi Maxamuud iyada oo Axmedoobe Saciid Dani iyo sidoo kale raggii kale ee mucaaradka oo Shariif iyo Khayre ay ku jiraan madaxweyne Xashi Maxamuud mar kale madaxtooyada ku soo dhaweeyay waayahay haddaba shirka maanta yaa maqan yaase jooga madaxweyne Xashi Maxamuud ayaa shir gudoominaya waxa ka maqan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamza Cabdi Barre laakiin ra'iisul wasaar ku-xigeenka dalka Saalax Jaamac ayaa jooga Faarax Cabduqaadir milkiilaha dawladda ninka la rumaysan yahay wasiir Cali Xoosh Mahad Maxamed Salaad ayaa soo kale Sanbalolshe ayaa dhinaca mucaaradka matalaya aan idhaahdo dhinaca dawladda waa madaxweyne Xashi Maxamuud iyo rag kale aan ku soo sheegay ayaa dhinaca dawladda ka soo halka mucaaradka ay ugu jilba culusan yihiin Sheekh Shariif Axmedoobe Saciid Dani Cabdiraxmaan Cabshakuur Mr Kofi Roble Khayre iyo sidoo kale madax kale oo miisaankooda uu culus yahay oo ina Faarax Shirdoon Saacid uu ka mid yahay sidoo kale dhinacyadan dhamaantood maanta waxba kama soo tagin waa la isu biro tumanaya madaxweyne Xashi Maxamuud mucaaradku wuxuu kala doodayaa wax ka beddelkii dastuurka welina baarlamaanka gabagabo u maraya baarlamaanka shaqadooda ay wataan wax ka beddelkii dastuurkan heer gabagaba ah ayuu ku dhow yahay soo dhaweynta maanta tii maalin dhaweyd ee bilowga shirkan maxay kaga duwaneed madaxda golaha mustaqbalka hadda sida aan kula wadaagay Villa Soomaaliya ku sugan shirka maanta wuxuu qaadan karaa 4 ilaa 5 saacadood maalin dhaweyd madaxda 2 saacadood oo kaliya ay soo fadhiyaan laakiin maanta shirka intaas waa uu ka weynaan karaa shirka wuxuu ku soo aadayaa xilli xalay weerar afka Saciid Dani uu ku qaaday maamulka madaxweyne Xashi Maxamuud isagoo oo si walba loola hadlay wax ficil laga waayay Dani ayaa hadalkaasi waxa uu ka jeediyay xalay gudaha xiran isagoo kula la qaadanayay odayaasha dhaqanka ee Hawiye iyo waxgaradka siyaasiyiinta beelaha Hawiye ee Muqdisho ku dhaqan haddaba shirkan maxaa laga firi karaa maxaa ka soo baxaya xagee bay wax ku dambeey karaan madaxweyne Farmaajo uu ka maqan yahay waa afarta murashax ee ugu sareeyay ayuu ka mid yahay Farmaajo waxa loo arkaa ragga doorashadan ku loolamay kara Xasan Sheekh oo hadda xukunka hayo Farmaajo oo xukun ku wareejiyay Sheekh Shariif oo madaxweynihii sagaalaad ahaa ninka saddexaad ee kursi ninka afraad ee kursiga ku cusub ee loolanka adag ku jira waa Saciid Dani afarta nin ee ugu saameynta badan doorashada Soomaaliya xilligan ayaa loo arkaa wali laakiin heshiis lama aha 90 cish wax ka yara ka haray 15 May 2026 waqtiga doorashada loo astay ay tahay haddaba nuxurka khudbada Dani ee xalay waan kula wadaagay hadii alla weyno laga helo soo dhaw hadii aad nagu cusub tahay ku soo biir channelka muuqaalka like saar una sii share garee saaxiibada waa mahadsantahay waxaan rabaa inaan ku bilaabo madaxda mucaaradka ayaa goor dhaweyd soo gaaray aqalka looga arrimiyo Soomaaliya ee Villa Soomaaliya halkaas oo ay shir culus kula yeelanayaan madaxweyne Xashi Maxamuud iyo dawladda shirka waa uu furmay sida xogta aan ku helayno waxaana mar kale xarunta madaxtooyada shir u dhaxeeya madaxda golaha mustaqbalka iyo madaxweyne Xashi Maxamuud looga hadlaya halkaasi kulankan ayaa mid xasaasi ah isla markaana dib u dhacay 2 jeer oo hore waxaana gudoominaya madaxweyne Xashi Maxamuud waxaana sidoo kale goobjoog ka ah ra'iisul wasaare Xamza oo shirka dib ugu soo biiray taliyaha Niza iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada ee xukuumadda dan qaran dhanka kale mucaaradka iyaguna sida aan hore kugu sheegay waxa uga qayb galaya shirkan golaha madasha samata bixinta iyo madaxda maamulada Puntland iyo Jubbaland oo golaha mustaqbalka ku midaysan labada dhinac ayaa maalmahan ku maqnaa wada tashiyo gaar oo ku aadan wada hadalada iyadoo oo golaha mustaqbalka Soomaaliyeed uu ka laabtay go'aankii ay hore ugu duudeen inay wada hadal toos ah la galaan dawladda waxayna meesha ka saareen guddigii gaarka ahaa ee ay u xil saareen wada xaajoodkooda kadibna ku dhawaaqeen in si buuxda markaasi loo gali doono shirarka ka soconaya Villa Soomaaliya oo maalinkii shanaad ee Ramadaan oo maantaba ah soconaya sida uu qorshuhu yahay waxa shirka maanta diiradda lagu saari doonaa arrimaha doorashooyinka heer federaal iyo heer dawlad goboleed gaar ahaan maamulada Koonfur Galbeed Hirshabelle iyo Galmudug oo iyagu waqti aan xad lahayn oo muddo dhaaf ku joogo qaarkood muddo xileedkoodii mid la eegay ku joogan lafta gareen oo kale 2018 la doortay 2026 la maraya 8 sano ayuu kursiga sharci darro ku joogaa 4 sano kamid ah waa xaraam 4 sano la doortay 4ta kale isaga xoog ugu darsaday waxaas laga hadlayaa marka mucaaradku waxay doonayaan in la qabto doorashooyin heshiis lagu yahay halka dawladda federaalka ay doonayso qabashada doorasho qof iyo coda oo mucaaradku ay arkaan wax aan dhici karin
shirkan ayaa ku soo aadaya xilli xasaasi ah oo dalku uu wajahayo abaaro iyo xaalado bini'aadantinimo oo qalafsan iyadoo oo shirarkan iyo waxa ka soo bixi karana ay dusha sare kala socoto ama shayada sare ka daawanayso beesha caalamka. si kastaba Soomaaliya xilligan waxay joogtaa isgoys adag oo xasaasi ah oo ka gudbidiisu ay u baahan tahay ka fiirsasho taxadar la xawjeclaysi iyo sidoo kale in dalka loo turaba ay u baahan tahay. mucaaradku waxa looga baahan yahay nuglaan halka dawladdu iyaduna la rabo in aysan sameyn ku amar taagleen iyo sidoo kale in awood marooqsi ay sameeyso. madaxweyne xashi maxamuud waxa looga digayaa wixii uu diidanaa 2022 inuu isagu sameeyo. shalay maanta maaha laakiin maanta shalay way waqtahay. sababtu waxa weeye xasan sheekh maxamuud 2022 isagoo mucaarad ayuu lahaa geela qala 1990 loo laabanaya yaree kale ayuu ku hadaaqay isagoo ku xumeynaya madaxweynihii waqtigiisu dhamaaday ee xilligaas madaxweyne hore maxamed cabdullaahi farmaajo ee xabiibul malaayiin ugu yeeraan taageerayaashiisa. barigaasi xasan sheekh waxa uu farmaajo u loogay mucaaradka laakiin farmaajo maanta mucaarad uma soo raacin. waxaana mucaaradku ay farmaajo u noqon lahaa kab xoog leh ama udub dhaxaadba sababtoo ah farmaajo wuxuu leeyahay taageerayaal aad u badan waxaana loo arkaa ninka ugu badan ee rajada soo laabashada qaba. madaxweyne farmaajo si cad ay u diiday inuu shirarkan ka qayb galo isaga oo sheegay inuu taageerayo dawladnimadii wixii ka soo baxay sheekhna intuu waqtiga sharciga ah hayst aysan xaq ahayn in lala hadlo. dhinaca kale madaxweynaha Puntland xalay waxaad ogeydeen inuu kulan la yeeshay qaar ka mid ah odayaasha gobolka Banaadir oo kala hadlay xiisad siyaasadeed ee dalka gaar ahaan khilaafaadka u dhaxeeya federaalka iyo sidoo kale maamulada iyo golaha mustaqbalka. dani xalay waxa uu ka hadlay markaasi wada hadalada ay kula jiraan Villa Soomaaliya waxa uu ku tilmaamay inay dhab ka tahay oo ay doonayaan in la gaaro heshiis siyaasadeed si loo gudbo xaaladda adag ee wadanka. in la heshiiyo ayay danta dalkan ku jirtaa runtii annaga dhab buu naga yahay heshiiska dalkani ama dalkan in uu culays kale si fuulin baan u damqanaya ayuu yiri Siciid Dari. xalay sidoo kale wuxuu aad ugu fogaaday madaxweyne xashi maxamuud oo uu yiri muqdisho say u taala laguma sii eegan karo caasimadna uma muuqato aniga kaga laxaw jeclo badan ku hadda joogo gobol bay ka yimaadeen reer muqdisho ma aha buu yiri. waxa uu hadalkaas ugu jeeday baa la yiri markaasi in uu madaxweyne xashi maxamuud ku xumeynaya. wuxuu yiri muqdisho wali laxaw jeclo ayaa iga hayso caasimadda inaan markaasi sidan iyo dadkeeda ku sii arko iyo degmadii aan deganaa ee howlwadaag ma doonayo. xamar waana loo kala sheekeeyay cid iga jeclo badan ma jirto dadka in aan arko ayaan rabaa. waxaan garanayaa xamar siday ahayd barisamaadkii waxaan jeclaan lahaa caawa in aan howlwadaag joogo dadka Soomaaliyeed waa walaalo ayuu si raaciyay madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani oo hadal kooban ka jeediyay munaasabad uu sameeyay odayaashii siyaasiyiinta wax garadka beelaha hawiye oo muqdisho uu kula kulmay. ninkan ayaaba olole doorasho wax u muuqdo wada waxaana maalin dhaweyd uu la kulmay sidan oo kale odayaasha dhaqanka ee beeshiisa daarood isagoo markaas kala hadlay qodobo waaweyn. bal ila daawo. runtii aad baan ugu faraxsanahay aniga iyo wafdigii la socdayba inaan magaalada muqdisho oo ah caasimadii dalka u nimaano dalka iyo marxaladda uu marayo wixii aan ka geysan karno oo gacan ah inaan ka geysano. inkastoo aanan rabin inaan iniga sheekeeyo intii looga sheekeyn lahaana ayna ahayn maraaxiilshii kala duwaneed aan soo marnay oo marba marka ka dambaysa ay soo roonaanayso laakiin haddana meeshii noo habboonayd ma joogno. arrintaas runtii waa arrin culayskeeda leh cid kalena aynu u maqnayn oo cidna uma maqna ceelno muuqdan baan la dhihi jiray intanba iyo inta la mid ay sugaysaa inaan xaalad dabiiciya ku noolaano oo dalkeenna meeshaan doonna ka marno oo si walba oo qofku munaasab ugu tahay xaaladahan u wajaho waa sidii wanaagsanayd. runtii waxaa nasiib darro ah in arrimo siyaasadeed naftirkooda ay waxyaabaha cakirmaya ay daraf ka yihiin oo dadka siyaasiyiinta naftirkooda mas-uuliyaddaas ay qaadeen. marka laga tago hadda dadka nabaddiidka ah oo iyagu qorshahoodu cad yahay haddana waxaan aad loo fahmi karin kala xirxirnaanta dalka ka jirta iyo caqabadaha siyaasadaha abuureen ee amniga isku beddelay dalka ka jirta ma aha wax qiil loo heli karo. runtii waa wax u baahan in la iska warsado oo xal laga gaaro. arrimaha amniga marka la isku soo duuro oo kuwa xataa nimankan argagixisada ah lagu daro arrimo siyaasadeed bay salka ku haynayaan isdiidooyin
iyo aragti kala duwanaan heerkay doonta ha gaartay laakiin dadka Soomaaliyeed waxay isku waafaqsan yihiin arrimaha dibadda siyaasadda ka yimid ee ururada argagixisada wadaan inaysan ahayn arrimo siyaasadeed oo Soomaaliyeed oo meel looga soo wada jeesto taas waxaan u malaynayaa la iskuma khilaafsana hadda laakiin maxaa hortaagan marka oo la isku soconaya ma dad yar oo aragtidooda iyo dadka hogaaminaya dibadaha ka yimaadeen iyo wiilal dhalinyaro oo Soomaaliyeed ay duubsadeen baa Soomaalida 20 milyan ka adag iyo dawladooda iyo dawladahooda state-ka wax aqliga bini aadanka gali kara maaha marka waxay u muuqanaysaa khaladaad annaga naga dhex jira inay saldhig u tahay khaladaadkaas wuxuu ku baahay qayb kasta oo bulshada ah laakiin qayb kasta oo bulshada waxaa saldhig u ah hoggaanka siyaasadeed marka runtii cid kasta oo siyaasadda ka soo shaqaysay ama hadda ku jirta eedaas kaba gilgilan kartay waa ku tiranta inay ku dhiirato in ay ka gaabisay oo ay khalad jirana way fiican tahay maxaa yeelay xalkaa imaanaya runtii waxaan ilaahay ka rajaynayaa idinkana aan inaga codsanahay bisha Ramadaan inaad Soomaali u duceysaan oo xaaladda ay ku jirto ilaahay ka dul saaro halistii markuu dalka burburayay 90kii iyo muddadii ka horeysay ee dagaalkii qabooba ahaa ee qayb badan ka burburkeena saldhigga u ahayd baan waxaan sugnay 30 iyo dhowr sano intuu kii labaad imaanay hadda kii kale aan ugu dul dhashay khataro kale oo baaxsan oo ka baxsan khilaafaadka dhexdeena ka jiray baa geeyo ku wareegsan oo naftirkeeda markuu kaasi jiro waa adag tahay xalalka naftirkooda oo xalku waa sii dheeraada marka hadda waa curdin waa bilow geesa lama bixin fursadda aan haysanna aad bay u yartahay fursadda aan haysanna waxa weeye dadka Soomaaliyeed hadda inta goorgoorta inay dhinac isu raacaan oo khilaafaadka dhexdooda yaala dhinac iska dhigaan oo ay ka heshiiyaan siday hore ugu socon lahaayeen aniga hal fariin baan in farayaa ilaa aan ka wada shaqeyno dalkan waxaan ku heshiinay markaan duruufaheena aragnay dastuur ku salaysan nidaam federaal oo dadkeena isku haynaya oo horumarkeena saldhig u noqon kara khaladaadka dadka markaa mas'uuliyadda haya ama hay'adaha dawladda ka dhacaya waa wax iska sii soconaya waqti u baahan maxaa yeelay waqti dheer baan dawladnimada ka maqnay laakiin qodobka ku saabsan inaan ismaamulno oo nidaamka dawliga ah ilaalino inaan ku faraaqdeegno waad ogtihiin labadii heer ee federaalku sameeyay dagaal baa lagula jiraa Puntland waxa lagula dagaalamay Jubbaland lagula dagaalamayaa maamulka aad leedihiin oo nidaamka federaalka idin siiyay ha ku dhaqmin oo ha ku shaqeynina ani tafsiir kale waa u waayay kuwii kalena waa laga adkaado hadda waa aragtaan iyagoo bilaa sharci iska fadhiyaan marka dawladda hadda jirta ulajeedadooda waxa weeye nidaamka federaalka inay dudumiso halkaas fariin baa ina farayaa in halkaas laga hortago bes waxa kale waa secondary waxa kale oo dhan macno ma leh oo dadka maskaxdiisa ka guuxaya waxa intaa ka daran dabaqadii waxgaradka ahayd ee dadka Soomaaliyeed gudaha joogay kuwa dibadda joogaba waxa la geliyay isnacayb iyo hadallo iska hor imaanaya iyo wax hadda magaciisa inuu si xun u dhadhamo aan u malaynayo narrative baad maqlaysaa maanta dhalinyaro yar oo ka sheekeeyay war waxa kan maxay tahay ma been baa maanta dhan ummaddan lagu dhaqi karaa oo dad lagu dhisi karaa oo dad lagu hogaamin karaa madaxba intay meel fariisato hadallo been waxa lagu leeyahay public opinion kan jiheynina war maxaa jihaysaa dadkan gaajaysan oo tabaalaysan oo biyaha la oo meel walba argagixisada ku haysato oo gidaar walba loo taagan yahay maxaa jihaysaa marka ma in Facebook laga amaanaa jihayn ah ma in dadka been ah ku sarqaysid baa jihayn ah aan waxaan oran lahaa dabcan qofka bini aadanka hadduu madaxa ka bukoodo waa meesha ugu daran caasimadii ayaa hadda bukta dadka inaan aragnaan u baahannahay dadka inaan la hadalnaan u baahannahay beentana laga sheegaya inaan iska dhaqno runta inay sheegnaan rabnaa hadday sidii la oran jiray la yiraahdo dhag walba afkeeda ha maqashana waa talo aan haddeertaan suubanayn oo hadda khatarteeda dhacaysa marka waxaan dhihi lahaa dadka Soomaaliyeed iyagoo isla jooga ha wada hadlaan nimankan Facebook-yada mararka qaarkood fariimaha ka soo dira macna sabayn mayso maxaa yeelay dadku markuu joogo isfahmaa markaad qofka wax ku eedeysid
وكيرا ورئيدا ملهي إن أجروا ستابة دعك التصومة لكن هذا هذه إيد وشيكتي ضحك ليها في